xawaaruhu oo kaliya kuma filla. maanta waa maalin macaluula qoyskan dhexdiisa. waxay ku sugayiin goob aad u khatar badan, goob ay maamulaan libaaxyo halis badan oo ka mid ah bisadaha waaweyn. haddii ay roobab ku daahaan wax ballanqaad uma haystaan inay sii noolaan doonaan. muhaajiriin xayawaan oo aad u tiro badan ayaa gees walba ka soo hoobanaya. libaaxyadu waxay kulaalayaan logosyeedyada, sidoo kalena way jeedaalinayaan. yididiilada dacwada iyo gorgorku waa mid aad u sarreysa maanta. waxaa ammaankooda ka guuxaysa maanta waxay diirtaan oo halibaan. waxay ku raad joogaan had iyo jeer sidii u heli laayeen saamigooda raqda uu dilo libaaxu. kolka ay abaartu adkaato ay dheherato, libaaxa ayuunbaa wax ugaarsada. xataa dhurwaaga laftiisa abaarta ayaa disha mararka qaar. shimbiruhu danka malaha ugaarsadaha haraad daran u haya awgeed. waxaanay maanka ku hayaan libaaxu inaanu ku saqajaamin baallayda. waxay dhammaantood la cabsanayaan nafahooda marka uu soo galo boqorku aagga, balse ay duureedku isagu midaasi waa ka feejigan yahay. isla mar ahaantaasina biyaha ayaa maankiisa ku haya. sidaynu ka wada dharagsanahay, makhluuqaadka oo dhan naftooda waxaa ugu fadhidaa qiimo aad u badan, balse ku soo dhowaanshiyaha libaaxa ee ay duureedku waxay sababtaa dhimasho ama sidoo kale inuu ku waayo naftiisa halkaas uu ku bakhtiyo. waqtiyadan adag ee abaaraha ayaa waxay salfanaysaa nafo badan, siina xambaaranaysaa. waxay cuneen mid ka mid ah ay duureedka libaaxyadu waa labada dhadig ee walaalaha. isla mar ahaantaasina wax kasta oo ay ku qaadataba naftooda ay u horayaan biyahani. waxa uu ka mid yahay xayawaanada khatarta badan la ay duureedka markay noqoto xagga ugaadhsiga. inta badanna mararka qaarkood wuxuu dilaa dhalaha libaaxa. waqtiyada qaar isaga ayaa lagu helayaa jaanis lana cunayaa ay duureedka laftiisa. mid ka mid ah kuwan dhadiga ee walaalaha way riman tahay, waana dhali doontaa. maalmahan kulaylku waa saayid. qaarkood way haraaryoonayaan. tanna macnaheedu waxay tahay kulayl badan. waa qaar aan marnaba beerdarayn fursadahooda. waqtiyada gaarka ah ee ugaadha waaweyn balse ka il horeynta iyo aragtidu waa cadawgooda koobaad ee libaaxyada. waadhooda waaweyn ay maanta ugaadhsan lahaayeen nasiib xumo waxay ka arkaysaa ilaa hal meel oo aad u fog. balse midaasi ma aha qaar iyaga ah joojinaysa. waxaa soo muuqatay fursad kale. waa goodir, midkaas oo ka dheer kana culus libaaxa ilaa 100 pound. isla mar ahaantaasina dhammaantood si fiican u kafaynaya, kuna kifaaxi karaan gaajadana ku ilaawayaan. waxa uu ka miisaan culus yahay 100 pound midka laba ee libaaxa ah, taasoo noqonaysa laba mid dhadiga. isla mar ahaantaasina geesihiisu waxa lagu qiyaasaa 5 feet, kuwaasoo macnaheedu noqonayso lugta libaaxa ayay leeyihiin geesu.
Simbirixo ayaa goodirka badbaadisay waqtigan. Siibashada midda dhadiga awgeed maanta waa u badbaaday. Libdhadu waxay ku tarmaadaysaa godkeeda iyaguna way ugaarsanayaan. wax yar uun ka hor warsa kaligeed ma cunayso. waa mid dhalka tacab badan. waa uu soo dhawaaday dacwga isagoo doonaya haatan inuu gaado kana xado. balse waa inuu sugaa waqtigiisa. waxay gaar ka haysaa middan dhadig ah raqda. waqtiyada abaarta ma jiro wax lagu bixiyo sadaqo halkani. waqtigan haatan la joogo abaartu waa adkaatay xayawaanaduna kama baqanayaan libaaxa qaarkood way u dhawaaday. raxanta intii kale waxay ka haajireen quraacdoodii waxaanay joogaan kaynta. waxay buuxsadeen caloosha. aad bay u kulushahay in la difaaco. aad bay u kulushahay in la cuno. waxaa taana su'aal ay ku waleemaysanaya maanta gorgorrada. waxaa lagu hirdamayaa raqda aaguna wuxuu noqonayaa Omas iyo Bool.